filla Soomaaliya ayaa markan qaadaysa tallaabooyin isbedel siyaasadeed loogu sameynayo golaha fulinta kadib meelmarintii dastuurka cusub ee filla Soomaaliya ee gadaalka riixaysay ila wareedyo kala duwan iyo xogo hoose oo uu Himilo Somali TV ka helayo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxay sheegayaan in markan la bilaabayo isbedel toos ah oo lagu sameeyo qayb kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliya xubno siyaasiyiin ah gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka Adamadoobe iyo shakhsiyaad kale ayaa lagu qancinayaa isbedelkan maadaama ay kaalin weyn ku lahaayeen qorshihii dastuurka dhameystirka siyaasiyiintiisa intaba sidoo kale xubno ka tirsan maamul goboleedyada ayaa iyaguna lagu qancinayaa isbedelkan si ay u taageeraan dastuurka cusub ee la sameeyay isla markaana ay u garab istaagaan filla Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn isagoo gadaal uga taagan in dastuurkan uu soo hambaliyay kana hadlo ilaa inta laga bedelayo shakhsiyaad ay hayaan oo ka tirsan xukuumadda Xamza Cabdi Barre uu hogaamiyo wasiirada qaarkood ee meesha ka bixi doona ayaa qaybtood aan helnay magacyadooda iyo wasaaradaha kala joogaan iyadoo qaybaha kalena ay suuragal tahay inay ku baxaan qodobka dastuurka cusub uu dhigayo ee sheegaya in xildhibaanku aanu noqon karin wasiir taasoo meesha ka saaraysa xildhibaano hadda isku ah wasiiro ku jira xukuumadda Xamza Cabdi Barre Laftagareen shakhsiyaadka ay sayaan ayaa daaqada laga saari doonaa sida wasiirka arrimaha diinta Mukhtaar Robo Cali oo Mansuur wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Eelay iyo sidoo kale xubno kamid ah wali golaha wasiirada Soomaaliya hase yeeshee Laftagareen labada shakhsi ay doonayaan si gaar ah waliba Xasan Eelay meesha looga saaro maadaama ay isku hayaan arrimaha koonfur galbeed bay dhamaan looga wixii ka dhacay sidaas la mid ah madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa isla lagu qancinayaa golaha wasiirada isbedel lagu sameynayo iyadoo meesha laga saari doono shakhsiyaad qaybtood ay hayaan sida xogta ay nagu soo gaartay Adamadoobe ayaa isna geesanaya magacyo cusub oo wasiir looga dhigayo si ugu yaraan meesha uga baxaan xubnaha hadda xildhibaanada ah wasiirkana ka ah xukuumadda meeshan la geeyo shakhsiyaad aan xildhibaan ahayn kaliina raasida kursiga wasiir dhammaan isbedeladan ayaa la filayaa inay dhacaan dabiiqada bishan Ramadaan aynu ku guda jirno iyadoo suuragal ay tahay in ilaa iyo Abriil bilowgeeda la isla gaaro sida xogaha iyo wararkan helayna ay muujinayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu markan u dhaqaaqayaa dhabaha muddo kororsiga marka loo fiiriyo in ay isaga iyo tiimkiisa ansaxsadeen dastuur siinaya 5 sano oo muddo xileed ah taasoo ka dhigan in 2027 May xilligaasi uu madaxweyne Xasan wareejin doono kursiga filla Soomaaliya hase yeeshee tani maaha mid u soconaysa ay leeyihiin falanqayaasha siyaasadda marka loo fiiriyo caqabadaha amni siyaasad iyo doorasho ee xilligan dalku wajahayo taasoo ku qasbi karta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in talada uu dhulka dhigo wada hadal goorta siyaasadeed uu la galo xubnaha mucaaradka ah ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbedelada sidoo kale waxay qaybtood saameyn ku yeelan karaan sida loo xaqiijiyay hay'adaha amniga oo qaarkood meesha uga bixi doonaan ishaysad iyo murano soo jiitamayay muddo bilooyin ah taasoo sababaysa in qaarkood lagu bedelo xubno kale oo daacad u ah taliska madaxweyne Xasan si ay u fuliyaan weeraro iyo dagaalo siyaasadeed oo loo galayo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa si filla Soomaaliya loogu sii hayo la socda Himilo Somali TV oo isha ku hay wixii warar xooga ku soo kordha tan iyo kulan dambe nabadgelyo